xuska 1 Agost oo ah 17 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskii dawladda Puntland ayaa waxaa si weyn loogu dabaaldegay degmada Buurtinle iyadoo la qabtay xaflad ay ka soo qayb galeen maamulka degmada, ururada iyo xaafadaha magaalada, nabadoonnada iyo ciidamada ammaanka degmada Buurtinle. xafladda sanad guurada Puntland ayaa loogu duceeyay cid kasta oo qayb ka qaadatay dhismaha iyo geedi socodka Puntland, waxaana si weyn loogu dheeraaday marxaladihii kala duwan ay soo martay. sidoo kale abwaanada ku dhaqan degmada Buurtinle ayaa soo jeediyay maansooyin ay ku cabreen horumarka nabadda iyo higsiga dawladda Puntland. ugu horeyn ayaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ahna xogayaha dawladda hoose ee degmada Buurtinle Xaafid Cabdirasaaq waxa uu ka warbixiyay sanad guuradan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sanad guurooyinkii hore. waxay uga duwan tahay sanad guurooyinkii hore shalay waxaa noo yimid madaxweynihii dowladda Puntland oo fursad siiyey shacabka reer Buurtinle inay u gudbiyaan aragtida kaga aadan dowladda federaalka iyo midnimada iyo wadajirka dowladda Puntland. runtii arrintan waa fursad laga doohay awal shucuurad tira badan waxaynu kusoo gudbinay inayna ogoleen hal taako oo ka mida Puntland inay cid kala sheegato. waxaa meesha ka cad shacabka Puntland ama shacabka reer Buurtinle inay diyaar u yihiin midnimada iyo sharafta dowladda Puntland ayna diyaar u yihiin inay difaacdaan. soo qaybgalo munaasabadii 17aad ee sanad guuradii la aasaasay maamulka dowladda Puntland oo maantii awaa ka mid ah halkii goobjooga oo ah xilligii la aasaasayay ilaahay caafimaadka dowladdaasi baan uga mahadcelinaynaa. waxaan ku faraxsanahay inuu weli doonisan yahay in madaxweynihii shacab uu hadda xilka hayo. waxaan ku faraxsanahay wax badan oo aanan haysan maalintii la aasaasayay maanta ay degmada Buurtinle ka dhex muuqdaan. sidaa la socda degmada Buurtinle waxbarashada ka jirtay waxaan xusuustaa hal dugsi hoose dhexe oo ka jiray markii Puntland la aasaasayay. maanta waxaan qiyaasaya dugsiyada hoose dhexe oo ka jira inay toban ku yihiin. dugsi sare ma lahayn, maanta waxay leedahay 2 dugsi sare. innagu waxaanu ku tiirsanahay waa odayaasha waxgaradka weeye iyo dowladda waa ka saacidaysa. marka waa in guntigiijis la sameeyaa, nabadgelyada ku mintidnaa. sidoo kale anigu waxaan aragnaa mashaariicda badan degmada kusoo wajahan oo cid walba dareenkeeda ay toosisaa oo ciddii ka hor timaada aynu gacanta iskaga qabanno. arrintaasna shiro badan baa laga sheegay, laakiin waxaan ugu celcelinayaa ahmiyadda ay leedahay. Puntlandna haddee waa socotay cid walba way og tahay. soomaaliyana intii dhiban ku farximana ilaahay ka dulqaado dhibka. maanta halkaa waxaynu isugu nimid xafladda tan farxadda weyn leh oo meelo badan oo intaa ka mida ka dhacaysa. ma aha waddanka keliya inay ka dhacayso, adduunka oo dhan bay ka dhacaysaa. because waxaan joognay waxaan dhihi karaa kaalinta koowaad waa gabdhaha, laakiin waxaan ka baqayaa odayaashuna indhahay gudgubaan iyo dadka siday la socono waa xubnaha qaaliga ah ee bulshada dhibaatadeeda oo dhan u istaaga oo maxaan ku dhahaa culaabtoo dhan ku dhacdo. intaa waxaa u dheer shaqadii guriga, maxaan ku yidhahdaa tii caruurta, tii odayaasha waxaasoo dhan ka culus. maalintii ku astaysan 17 guuradii markii ay dhisatay Puntland oo runtii laga soo maray waqti adag, shiddo iyo dhibaato aad u adag in Puntland la istaajiyo, midnimada loo taago. runtii waxaan leeyahay dadkaas lahaa caqligaas dadkii lahaa, dadkii u maaragtay ku bixiyey dhaqaalaha in ay Puntland dadweynahaas geysato maanta. intii dhibaato waxaan leeyahay Allah naxariisto. inta nool oo weli ka shaqaynaysa midnimada iyo horumarka Puntlandna waxaan leeyahay congratulations aad u mahadsantihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinaca kale daawadayaal waxaa sidaan oo kale si lamid ah 17 sano guurada dawladda Puntland xuskeeda lagu qabtay degmada Xarfe ee gobolka Mudug, waxaana ka qayb qaatay ururada haweenka, dhalinyarada, laamaha ammaanka iyo odayaal dhaqameedka ku dhaqan degmada Xarfo. xafladan 1 Agost ayaa waxaa hameennimadii xalay ahayd lagu dabaanshaadayay xarunta horumarinta haweenka ee degmada Xarfo, waxaana lagu soo bandhigay riwaayado iyo maansooyin ka turjumaya micnaha 1 Agost iyo sidoo kale sidii loola shaqayn lahaa ciidamada ammaanka loona wada ilaalin lahaa deegaanka. waxaan filayaa waxayna isugu nimid wax
taariikhda muddo yar oo lagu soo koobi kara inaysan ahayn waa sanad guuradii aasaaskii Puntland oo 17 sano jirsatay. Puntland waxaa la aasaasay 1998 August 2 oo caawa ku beegan. muddo badan baa waxaa loo fadhiyey aasaaskii Puntland, isma dhaqameedkii, waxgaradkii, culumadii, haweenkii, kulli oo meeladalkeediina waa tan maanta aan hayno. haatanna sidaan la soconno ilihii dhaqaalihii Puntland meel fiican ayuu marayaa, dekadihii baa la dhisayaa, eelaboorhadii baa dhismaya. xarfo sida dowladda Puntland loo yidhaha isku tashato ayaa annagu waxaan leenahay caawa xarfa isku tashaday haddaan nahay maamulka degmada. waxbarashada degmada xarfa meeshay marayso waanu la soconnaa, ilaa heer secondary ayaanu haysanaa, jaamacad iyo wax ka sarreeya waan sugaynaa insha Allah. maxaan ku dhahdaa aasaaska Puntland ee 17 jirsaday inaan u faraxsanahay si aan caadi ahayn, si macquul aan ahayn, si innaba la isdhihi karin in sidaan waa caadi si ahayn ayaan u faraxsanahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Puntland farteeda baalood badbaa ku xiran, barwaaqa buuxda oo xoolaa ku badan, buro waxaa looga dhigay geeda bili u baxay, buro waxaa looga dhigay geeda bili u baxay, dhulima boqolkiiba boqol diinta bura u helay, balalka naartiyo cadaabeelaha ugu diga, balalki naartiyo cadaabeelaha uga diga, iyo waxa boqorkeedna ku ilaashay bayd qabow, boqorro iyo beelkana damba haysaa bitiga u sida, baruudkeeda iyo ayaankeedu kii birlaa, ee balan ninkan raadinahayo ku daya Puntland, midkii nabad baa filahayo ku daya Puntland, adduunyada baranbarahayso ku daya Puntland. ninka ogeyna hadda ogaado maalin qiimo weyn Puntland kule inay tahay. waa maalin dadkii ka soo shaqeeyey iyo dadkii talada isu keenay iyo oqaashii reer Puntland ay ku badbaadiyeen aayaha iyo jiritaanka iyo deegaanka shacabka reer Puntland. sidaan ogsoonahay markii la waayey qarankii Soomaaliya burbur iyo dhibaato badan ee dhacday ayaa oqaashii reer Puntland waxay u istaageen in ay badbaadiyaan deegaankooda. guuleed saajid warbaahinta dowladda Puntland xuska 1 Agost degmooyinka xarfo iyo Buurtinle.